guntii gunaanadkii bahda birlab efekis waxaa inoo soo gabagaboobay October wiigeedii ugu dambeeyay wiigi xiga maybe inay hal maalin ama laba maalin ka haleeli doonto haddaba muhiimaddu waxay tahay wiigani tagay maxaa ku qabsoomay wiigani tagay maxaad nood garaysay wiigani tagay muxuu kala tagay maxaad kala tagtay adigu runtaa waxay tahay mar walbo wiig cusub ku bilaabanayo wiigii ku dhaafay sameey waxyaalihii qaladaadkii ka dhacay inaad dib aad u eegtid waxa laga yaabaa inaad qaladaad ka dhaceen sababtoo ah ma jiro qof dhameystiran qofaan qalad ka dhaceen ma jiro waa inaad leedahay marka qaladaadkaagii jadwal ku xisaabiya sidoo kale waxaa bilaaban doonto bil cusub haddaba bishani cusub soo socota waxaa lagaga baahan yahay inaad u diyaar garowdid u diyaar garowdid November waxa weeyaan waa saddexdii bil tusaale September October November waa saddexda bil suuqa ugu fiican yahay hal bil baa ka harsan bilaha kale ee xiga suuqa waxa uu gali doonaa fasaxyo laakiin suuqa inta ugu fiican oo awoodiisa iyo dhaqaaqiisa waxa weeyaan waa bisha haatan soo socota November ayaa ka harsan kaliya waa September iyo October hore aan ugu soo gudubnay marka asxaabtayda qaaliga waxaa inta badan idin leeyahay waxay tahay inaa mar walbo wiiga markuu idlaado aad la soo baxdid maalintii ugu horeysay suuqa ee isniinta ah wixii aad nood garaysay haddaadan haysan xitaa account live haddaadan haysan xitaa account challenge account-kaaga deemada waxaad ku qaadato xitaa aad bay ku anfacayaan inaad soo qaadatid asxaabtayda qaaliga meel walba joogtaan waxaan idin leeyahay wiig qurux badan sidoo kale waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo October gabagabo weeyaan waxaa ka harsan 4 maalin saan jeclahay maantana waxa weeyaan waxay ku beegan tahay waa 27 in yar baa ka harsan October haddii sidaa ku ilaatana bahda birlab efekis diiwaangelin dambe ma qaban doonto ilaa iyo sanadka cusub laga gaaro aad baad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.